madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo dhawaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug ay sheegaan inay xalka ka qaadeen ayaa maanta soo saaray wareegto oo xaalad degdeg ah ku soo rogayo deegaanada uu ka taliyo maamulkiisa galmudug. wareegtadan ayaa lagu sheegay in xaalad degdeg ah oo soconaysa 3 bilood oo ka bilaabanaysa bisha Oktoobar maanta oo kow ay tahay lagu soo rogay deegaanada galmudug. xaaladan degdega ah ayaa waxay awood dheeraad ah siinaysaa maamulkiisa isagoo faray ciidamada kala duwan inay fuliyaan amarka madaxweynaha. arrintan ayaa waxay sii kicinaysaa xiisada siyaasadeed ee ka jirta deegaanada galmudug waxaana baarlamaanka galmudug uu noqday mid u kala jabay laba garab kadib markii ay halka qaadis ku sameeyeen madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo gudoomiyihii baarlamaankaasi galmudug. warqadan soo saaray madaxweynaha ayaa waxay u qornay tan markii uu arkay qodobka 50aad farqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug kaas oo madaxweynaha u siinaya in uu yahay hogaamiyaha iyo madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug. markuu arkay qodobka 50aad farqadiisa 7aad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug oo xeerinaya in madaxweynuhu uu yahay taliyaha guud ee ciidamada amniga ee dowlad goboleedka galmudug, markuu qadariyay dhaqdhaqaaqa ka dhan ah amniga iyo xasilinta dowlad goboleedka galmudug iyo isku dayada la isaga horkeenayo shacabka galmudug, markuu garwaaqsaday in natiijada iyo nidaamkii galmudug ay tahay waajib in dastuurku ina siiyay ayna jiraan kooxo abaabulaya inay halis ku yihiin jiritaanka galmudug, markuu tixgeliyay soo jeedinta golaha wasiirada ee dowlad goboleedka galmudug ee ku aadanaa adkeynta amniga iyo nidaamka ee ka dhan deegaanada galmudug. waxa uu soo saaray xeerkan qodobkiisa koowaad oo soo rogayo xaalad degdeg ah. dhammaan deegaanada dowlad goboleedka galmudug waxaa lagu soo rogay xaalad degdeg ah muddo 3 bilood ah oo ka bilaabanaysa maanta oo ay tahay 1 bisha Oktoobar sanadka 2017. qodobka labaad xaalada degdega ah waxay siinaysaa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug awood dheeraad ah oo ay u adeegsanayaan xaqiijinta amniga iyo xasiloonida deegaanada dowlad goboleedka galmudug. dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada dowladda galmudug ee booliska iyo nabad sugidda waxaa la farayaa inay fuliyaan amaradan ee soo saartay xukuumadda galmudug. qodobka labaad dhaqangalka xeerkan waxa uu dhaqangelayaa marka uu ansixiyo baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaafna uu saxiixo, waxaana warqadan ku saxiixana madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. haddaba tan ayaa waxay sii noqonaysaa xaalad kale oo dhibaato ku sii abuuraysa jahawareerka ka taagan deegaanada galmudug ka oo baryihii u dambeeyay uu ahaa mid ku qasan maadaama dhanka siyaasadda ay tahay mid ay isku hayaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug, taasi oo keentay ugu dambeyntii in madaxweynihii ku-xigeenka xilka laga qaado ayadoona sidoo kale baarlamaanka galmudug ay kala laabteen codkii kalsoonida ahaa gudoomiyihii